العالمين. halkaa iga daawanaysa Cabdiraxmaan Media magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan. kusoo dhawaada daawadeen muuqaalkeena maanta. haddii aad igu cusub tahay fadlan subscribe ii saar si maaragtay muuqaalada soo geliyo ay ku soo gaaraan. waxaan rabaa maanta inaan ka hadalno 3 qodob oo noloshaada haddii aad ku sugan tahay gadaal kuu dhigaya. yacni waa 3 qodob oo noloshaada gadaal loo celinaya. in 3 qodob aad ku sugan tahay. qodobka koowaad waa qodob aynu u badannahay inteena badan. yacni qodob si maalinle aan u sameeyo. haddii aad isku aragto in salaada aad dib u dhigayso oo salaada yacnaha wax walba ka hormaraysa, hadday shaqo noqoto, hadday ganacsi noqoto, hadday waxbarasho noqoto, whatever wejiyada kala duwan ay leedahay nolosha. haddii aad aragto in nolosha aad ka hormarinayso wax kasta, yacni salaadii oo taagan haddaad aragto inaad shaqo ka hormarinayso oo salaadii oo lagu jiro haddaad tira shaqo ku jirto, waa calaamad muujinaysa in maaragtay gadaal u soconayso nolosha. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay, wuxuu leeyahay salaadu waxay qofka ka reebtaa xumaanta, waxayna ku dhiirigelisaa wanaagga. ina salaata tanhaa cani ilfaxshaa'i walmunkar. salaadu waxay kaa reebaysaa xumaanta, waxayna kuu jiidaysaa wadada wanaagga. marka haddaad aragto in salaadan ay dayacan tahay, oo mar kasta ay noloshaada kharimayso ay gadaal usii soconayso. qodobka labaad, haddii naftaada aragto inay ku mashquulayso waxyaabihii dhacay, wax kasta oo tiraya ahaa, taariikh kastoo xumayd diiwaanka kuu gashay, haddii aragto inay naftaada ku mashquulayso, waa calaamad muujinaysa inaad gadaal u soconayso. maxaa weeye qofka inuu wax walbo ku dhaco, hadday noqoto ganacsi kaa halaabay, hadday noqoto waxbarasho kaa halaabay, whatever shay kasta oo noloshaada kaa kharib waa cashir ilaahi subxaana wa tacaala kugu targalay. waxaa marka isku daydaa cashirkaasi inaad gadaal uga socoto, inaad cashirkaasi isku day inaad gadaal uga noqoto, oo isku dayda maaragtay inaad hore u dhaafto, cashirkaasi horey oga qaadato. wax kasta oo kugu dhacay waxay doonaan kugu qadaan waa wax Allah subxaana wa tacaala ilaahi subxaana wa tacaala kugu talagalay si maaragtay mental ahaan maskaxdaada ay ku qodobka labaad, haddii aad aragto waxa la yidhahdo inaad gadaal u dhigayso procrastination, inaad gadaal u dhigayso wax kasta oo qabanaya. tusaale, maanta waxaa rabta inaad qabato cashiro, inaad diyaariso laysiyo waxbarasho, inaad diyaariso. hase yeeshee waxbarashadii maadan diyaarinin oo saa u lahayd maanta ayaa la qabanaya, berri ayay ku dhimisaa. berridasina dhammaad ma leh, waa wax aan dhammaan lahayn. marka isku day wax kastoo go-aan u qaadato, waxay doonaan go-aan noqoto. hadday noqoto maanta inaad tiraahdo, dabcan mar haddaad tira waan qabanaya shayga waa qaban kartaa. isku day marka inaad shaygaasi aad qabato isla maanta, isla saacaddan aad taagan tahay, si maaragtay aad shay walba oo qaado aad ugu dhigeen. magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan. iyo aad igu cusub tahay fadlan YouTube channelka subscribe saar si muuqaalada soo geliya ay ku soo gaaraan.